بسم الله رب يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا معهدك اقرأ Institute of Technology. saakay waxaan qaadan doonaa 10 ka mid ah casharadeenii noo soo socday ee Excel accounting-ka. saakay waxaan qaadan doonaa 10 lagu magacaabo insha Allah taala exam formula. sida loo sameeyo ama loo dejiyo imtixaanada ardayda ama ardayda markiskooda sida loo dejiyo ama loo xisaabiyo ayaan baran doonaa insha Allah taala. casharkani waa cashar aad iyo aad muhiim u ah weeyaan. qof walba wax dhiga hadduu yahay bareefad ama hadduu yahay iskuul nidaami ama hadduu yahay jaamacad, dhammaan qeybahaasi ayaa u baahan in ay bartaan ama ay fahmaan sida loo xisaabiyo imtixaanaadka ama loo dejiyo adigoo qaacido u sameysanaya u dejisanaya. marka casharkani aad ayuu muhiim u yahay. waxaa laga rabaa marka aad barato kadib inaad sameyn karto ama aad u sameyn karto qofkii ka haysata faham yarid ay ka haysato inaad u sameyn karto ayaa looga baahan yahay marka qofka ardayga yahay insha Allah taala. marka halkan waxaa inoo yaala ardaydii magacyadoodii. halkan waa maadooyinkii ay galeen imtixaanaadkoodii. sidoo kale qeybtan waxaa laynaga rabaa inaan soo saarno totalka qof walba arday walba totalkiisa. halkanina waxaa laynaga rabaa inaan soo saarno averageka. halkanina sidoo kale resultiga waxay tahay ardaygani miyuu baasay ama miyuu dhacay weeyaan, meesha laga go-aaminayo weeyaan. halkani waa grade waxay tahay qofkani markuu baasay kadib ilaa xeerkee ayuu ku baasay, marka ma a plus miya, a miya, b miya, qaabkaas weeyaan. marka waan arki doonaa iyaduna sida loo sameeyo ama loo dejiyo intuba insha Allah taala. xisadan ayaan ku baran doonaa insha Allah taala. marka ugu horeysa si aan usoo saarno totalka, halkan waxaan leenahay sida aan kusoo ballanay equal ayaan ka bilaabi doonaa. equal markaan dhahno kadib waxaan leenahay marka waxaan leenahay sum ayaan leenahay. sum markaan dhahno kadib tab ayaan leenahay si bracket la inoogu furo. tab markaan dhahno kadib waxaad leedahay marka waxaa soo dooran doontaa dhammaan qeybtani ayaa soo dooran doontaa. marka aad soo doorato kadib waxaan leenahay shift plus 0 ayaan leenahay. marka shift plus 0 markaan dhahno kadib enter ayaan leenahay. qaabkaas ayaad ku soo saari kartaa totalka. wadadani waa wadooyinka aad ku soo saari karto wada ka mid ah weeyaan. wadada labaad aad ku soo saari karto totalka wuxuu yahay marka hore waa inaad dhammaantood aad select garayso ilaa qeybta aad rabto natiijada inaad ku soo saarto ee totalka ah ayaad highlight ku sameyn doontaa. kadibna waxaad aadi doontaa home adigoo jooga ayaa waxaad aadi doontaa groupka editingka. kadibna waxaad leedahay waxaad ku dhufan doontaa auto sum meesha ay ku qorantay aad hal mar ku dhufan doontaa. kadibna totalkii qaabkaas ayaanu ku soo saarnay. marka haddaanu soo saaranay laba, marka inta kale waan soo jiidan doonaa oo hal mar. kadibna qaabkaas ayaa la inoogu sameynaya totalkeena. midda labaad waxaan soo saari doonaa averageka ardaydani ayaan soo saari doonaa mid walba. si aan usoo saarno averagekaas waxaan leenahay marka equal ayaan leenahay. equal markaan dhahno kadib waxaan leenahay totalka ardaygani ayaan leenahay. kadibna waxaan leenahay loo qeybiyey ayaan leenahay. waxaa loo qeybinayaa inta maado uu galay ayaad u qeybanaysaa. marka hadda anaga 3 ayaa halkan inoo yaala, 3 maadi. kadibna waxaan u qeyban doonaa 3 maado ayaan u qeyban doonaa ama 3 ayaan u qeyban doonaa. haddii halkan 4 maado ay tahay 4 ayaad u qeybane. haddii ay 5 tahay sidoo kale 5 ayaad u qeybanaysaa. haddii ay 8 tahay 8 ayaad u qeybanaysaa mar walba. marka waxaan u qeyban doonaa anaga 3 ayaan leenahay hadda. marka kadibna waxaan leenahay enter ayaan leenahay. mar labaad haddii aan ku celiyo halkaas equal ayaad leedahay. equal markaad dhahdo kadib waxaad leedahay totalka ardaygani ayaad soo dooran doontaa. kadibna waxaan leenahay calaamadaasi loo qeybiyey ah ayaad ku dhufan doontaa. hal mar haddii aan idinka tuso marka keyboardka artificialka ama computerka calaamadu waa midani weeyaan. feeri haddaan ku dhufto okay ayaan leeyahay loo qeybiyey waa midan. kadib waxaan leeyahay 3 ayaan leeyahay. kadib waxaan leenahay marka enter ayaan leenahay. kadib waa ujeeda calaamadan isticmaalay waa calaamadan weeyaan. calaamadan ayaa isticmaalaysaa marka loo qeybiyeyda. kadib ayaduna waxaan ku sameyn doonaa waan soo jiidi doonaa dhammaantood si ay
hal mar laynooga sameeyo marka qaybtani saddexaadna waxaan ku soo saari doonaa resultiga ardayga ayaan soo saari doonaa taasi oo macnaheedu tahay ardaygani ma baasay ama miyuu dhacay weeyaan meesha laga go-aaminayo weeyaan si aan usoo saarno midaasi iyaduna waxaan leenahay marka equal ayaan leenahay halkan equal markaan dhahno kadib waxaan leenahay if ayaan leenahay if markaan dhahno kadib waxaan leenahay tab ayaan leenahay si barakad laynoogu furo kadibna waxaan leenahay marka if waa shardi hore aanu soo marnay haddii ardaygani averagekiisa waxaan leenahay uu ka weynaado ama uu la ekaado 50 ayaan leenahay hakad ayaan leenahay hakad markaan dhahno kadib waxaan leenahay waxaad inooga sheegtaa arday double code ayaan furan doonaa marka hore double code ayaan leenahay double code markaan dhahno kadib waxaan leenahay waxaad inooga sheegtaa ardaygaasi baas inuu yahay marka kadibna waxaan leenahay double codeka aan soo xiri doonaa mar kale marka waxaan leenahay haddii ardaygani averagekiisa uu ka weynaado ama uu la ekaado 50 waxaad inooga sheegtaa ardaygaasi inuu baasay inoo sheeg ayaan leenahay hakad ayaan leenahay halkan hakad waxay tahay marka haddii kale waxaan leenahay marka double code ayaan leenahay double code ayaan furan doonaa kadibna waxaan leenahay marka fail ayaan leenahay marka fail ayaan leenahay kadib double codeka aan soo xiri doonaa waxaan leenahay marka haddii kale hakadan waxay tahay marka haddii kale uusan 50 uusan ka weyneyn natiijadiisa ama averagekiisa 50 ka weyneyn ama uusan soo gaarin 50 waxaan leenahay fail inooga sheeg ardaygaasi inuu dhacay inoo sheeg ayaan leenahay kadib waxaan soo xiri doonaa bracketka aanu soo furnay aan soo xiri doonaa waxaan leenahay shift plus 0 ayaan leenahay kadib waxaan leenahay marka enter ayaan leenahay kadib ardaygani ugu hore waa baas weeyaan sababtoo averagekiisa 83 weeyaan marka qaabkaas ayaad usoo saari kartaa marka mar labaad haddii aan ku celiyo halkan waxaan leeyahay marka equal ayaan leenahay equal markaan dhahno kadib waxaan leenahay if ayaad leedahay if markaad dhahdo kadib tab ayaad leedahay si bracket loogu furo kadibna waxaad dooran doontaa averageka haddii ardaygan averagekiisa waxaan leenahay marka uu ka weynaado waxaan rabaa inaan idin tuso marka hal mar inaan idin tuso ayaan rabaa calaamadaasi waa midani calaamada waa midani haddii ardaygan averagekiisa waxaan leenahay uu ka weynaado waxaad taabanaysaa shift iyo calaamadan aad isla taabanaysaa shift waa ujeeda iyo calaamadaas aad isla taabanaysaa haddii ardaygan averagekiisa marka uu ka weynaado waa greater than waaye ama uu la ekaado calaamadaasi weeyaan marka equal ama uu la ekaado waxaan leenahay marka 50 ayaan leenahay haddii qofkani ama ardaygan averagekiisa uu ka weynaado ama uu la ekaado 50 ayaan leenahay hakad ayaan leenahay marka then waxaan leenahay calaamada iyaduna double code aan leenahay waa midan iyaduna sidoo kale shift iyo waxaad isla taabane shift iyo calaamadan ayaad isla taabane double code waa midaasi kadib waxaan leenahay baas inooga sheeg ayaan leenahay ardaygaasi kadibna waxaan soo xiri doonaa double codeka aan soo xiri doonaa mar kale waa tan iyaduna sidoo kale baas inooga sheeg hakad ayaan leenahay haddii kale weeyaan haddii kale waxaad inooga sheegtaa double code ayaan leenahay marka hore double code kadibna waxaan leenahay haddii kale fail inoo sheeg ayaan leenahay marka inuu dhacay inoo sheeg ardaygaas ayaan leenahay double codekii ayaan soo xiri doonaa marka kadib waxaan soo xiri doonaa ugu dambeyn bracketka aanu soo furnay ayaan soo xiri doonaa shift plus waxaan leenahay marka 0 ayaan leenahay kadibna enter ayaan leenahay qaabkaasi weeyaan marka kadib marka aan soo saaranay labada ugu horeysa inta kale waan iska soo jiidan doonaa hore aan usoo sheegnay marka waan soo jiidan doonaa marka labadani kale qaabkaas ayaad usoo saari doontaa waa ujeeda qofka ugu dambeeyo fail weeyaan sababtoo ah averagekiisa 43 weeyaan marka aniguna waxaan u sheegnay averageka meesha ugu yar inuu keeno ardayga 50 sidaa la ajiliyeed qofkani waa uu dhacay marka waa ujeedin fail ayaa qoran qaybta ugu dambeysa waxaan rabnaa gareedka inaan kusoo saarno marka gareedka si aan usoo saarno asna waxaan leenahay marka ugu horeysa halkan waxaan leenahay equal ayaan leenahay equal markaan dhahno kadib waxaan leenahay if ayaan leenahay if markaan dhahno kadib tab ayaan leenahay si bracket laynoogu furo kadibna waxaan leenahay haddii ardaygani averagekiisa uu ka weynaado ama uu la ekaado 90 waxaan leenahay hakad ayaan leenahay hakad markaan dhahno kadib waxaan leenahay double code ayaan leenahay marka waxaad inoogu sheegtaa ardaygaasi inuu yahay
double quote ayaan kusoo xiri doonaa. hakad ayaan leenahay mar kale, waxaan leenahay if ayaan leenahay. if haddii ardaygani kadib waxaan leenahay tab ayaan leenahay si baraka laynoogu furo. haddii ardaygani averagekiisa uu ka weynaado ayaan leenahay ama uu la ekaado 80 ayaan leenahay. 80 ayaan leenahay. hakad ayaan leenahay. kadib waxaan leenahay double quote ayaan leenahay. double quote markaan furno kadib waxaan leenahay nooga sheegta ayaan leenahay marka ardaygani b inuu yahay gradekiisa. double quote ayaan soo xiri doonaa. kadib hakad ayaan leenahay. kadib waxaan leenahay if ayaan leenahay halkan. if markaan dhahno kadib tab ayaan leenahay si baraka laynoogu furo. waxaan leenahay marka haddii ardaygani averagekiisa uu ka weynaado ama uu la ekaado ayaan leenahay marka 70 ayaan leenahay. hakad ayaan leenahay. hakad markaan dhahno waxaan leenahay double quote ayaan furi doonaa. kadibna waxaan leeyahay c inoogu sheeg ayaan leenahay. kadibna double quote ayaan soo xiri doonaa. hakad ayaan leenahay marka. if ayaan leenahay halkan. if markaan dhahno kadib tab ayaan leenahay si baraka laynooga furo. kadib waxaan leenahay haddii ardaygani averagekiisa uu ka weynaado ama uu la ekaado ayaan leenahay 60 ama 60. kadib waxaan leenahay hakad ayaan leenahay. hakad markaan dhahno kadib waxaan leenahay double quote ayaan leenahay. waxaan leenahay marka d ayaan leenahay. double quote ayaan soo xiri doonaa. kadib waxaan soo xiri doonaa inta qoys aanu furnay aan soo xiri doonaa 1 2 3 4 qoys ayaan soo xiri doonaa marka. kadibna waxaan leenahay marka 1 2 3 4 ayaan leenahay. kadibna waxaan leenahay marka inter ayaan leenahay. inter markaan dhahno kadib waa ujeedin qofkani waxa uu keenay b weeyaan. inta kale marka waan soo jiidan doonaa maadaama aanu soo saarnay qaacidada ugu horeysa si sax ah. kadib inta kale waan soo jiidan doonaa marka. kadib waa ujeedin marka qofkani a waaye 96 waaye a waaye marka qofkani b waaye qofkani b waaye qofkan 0 ayaa u qoran maadaama uu resultiga aan kusoo marnay inuu soo dhacay qofkaasi. marka qaybta gradeka waxaa u qoran 0 ayaa u qoran. qaabkaas ayaad u xisaabin kartaa ama aad u dejin kartaa marka ardayda imtixaanaadkooda iyo waxyaabahaasi. waxaan rajaynayaa casharka maanta inaan isla fahnay. waxaan idin leeyahay marka soo dhowaada. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.